السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وعنا ورسن صاحب بيال مالكس دوني دكا شوكتان كسر وهذا مانتا iyo barnaamijkeena Bollywoodka ama aribaha Bollywoodka Hindiya waanu ku soo qaadano inta badan wararka ugu dambeeyay filimada soo socda waxyaabaha laga leeyahay aktarada Hindiga wax badan oo cusub ayaan maanta soo qaadan doonaa uu qayb ka yahay filimka Kaban oo aan wax kaaga sheegi doono meesha filim baa ku dhan yaaqay Kaban aktarka Surya aad ku barateen filimada Tamilka iyo Teluguga oo lagu daray aktarka weyn ee Mohanlal filim baa meesha ka dhacay wax kaaga sheegi doono iyo wali waxaan soo qaadan doonaa dhammaan aktarada Bollywoodka ugu hambalyeynay dhalashadeeda aktarada caanka ah ee Kareena Kapoor wali waxaan soo qaadan doonaa maalinta gabdhaha oo loo dabaaldegay aktarada caanka ah Mahesh Babu iyo Ajay Devgan Allu Arjun Kareena Kajal iyo kuwa kale u dabaaldegay maalinta caruurtooda iyo wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo kale oo waaweyn oo ku jiro filimka War Tiger Sharif iyo Hrithik Roshan heeskii maalmood aan ku sheegay ay qaadayaan labada actor ma og tahay waxyaabo laga soo calaamaday Tiger oo markuu arkay Hrithik oo ciyaaraya indhaha taagay yiri ma ciyaari karo adoo ciyaaray man ba ciyaari karaya Tiger oo laga yaabsaday markuu la kulmay ninka dansiga ku dheereeya ee Hrithik inkastoo Tiger uu ku qatar badan yahay dansiga laakiin odayga weyn Hrithik lama dhawaa karayo heeska wuxuu ku cadeynayaa Hrithik oo ka yaabsanaya Tiger iyo wali waxaan soo qaadan doonaa warar kale oo ku saabsan aflaamta Hindiga bal warkii oo faahfaahsan hadda channelka cusub tahay noo subscribe garay saaxiib waqti kasta iyo saacad kasta si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay aflaamta Hindiga okay ba waa yahay aflaamtii Hindiga ayaan soo qaadan doonaa inta badan aad ugu barateen channelkeena inaan idinku soo gudbino waqti walba iyo saacad walba akhbaaradka ugu dambeeyay ee Hindiya okay ba waa yahay wararka Hindiga ugu weyn isbuucan waxa kamid ah filimada baryahan soo baxay iyadoo todobaadkan jimciyaan idin sheegay afar filim ay soo baxeen oo saddex ay ahaayeen Bollywoodka Hindiya halna uu ahaa filim Mareykan oo Hollywood ah oo waday aktarkii caanka Stallone ama Rambo ninka loo yaqaano haddaba filimka todobaadkan sidoo kale soo baxay ee isha lagu hayay wuxuu ahaa Kaban waa filim noociisa aan isaguna hore loo arkin Kaban waa filimada aad u taqaanaan yani kuwa Bollywoodka meel iska dhig laakiin waxa ku jira aktaraha Bollywoodka Hindiya jira ayaa wax ka jilay filimka kanu Bono Mirani baan arkayo filimka wax ka jilaya waa nin oday ah oo filimada Bollywoodka lagu garto laakiin baryahan filimada Tamilka iyo Teluguga xataa waa ku lug leeyahay marka filimka kan Kaban waa filim ay caan ku yihiin aktarada ugu qatarta badan filimada Tamilka iyo Teluguga waa filimada aanu jecelnahay baryahan waa ku daalay maxalida jacayl iyo ilan Shahrukhankiisi ma ahan baryahan Shahrukhan wuxuu jacayl soo fardhiyo jacayl uu jiro wax badan jacayl uu keeno filimada jacaylka iyo dilto baagal helay iyo muhabbateen iyo wixii uu Shahrukhan nagu soo maaweliyay jacaylkiisa Shahrukhankiisi ma aha maalmood film Zero liiradu keenay filimkana Zero isku bedelay film Zero liiradu keenay waa Zero ah filimkina Zero isku bedelay yani dhaqaale badan ma soo xareen ilaa hada ugu waan nijibshan Shahrukhan marka bariyaan Bollywood yaanu ma fahmaba ani kabtaan gashanahay Tamilka iyo Teluguga feerka dhulka la isgelinaya aktarka waxaan ba jeclahay markay dhulka inta la isku dhufto dhaqdhaq banooni miyaa leeyahay dadka banooniga ciyaartay banooniga laba mar dhaqdhaq banooniga camal qofka dhulka inta shaqo lagu siisto aharantii lagu qabanaa micna haddana wuxuu ku fiican yihiin khayraadka iyo waxyaabaha dooga iyo cagaarka iyo waxbaas bay ku fiican waa nolosha waxay ku xasuusinayaan Soomaalidu ay caanka ku tahay beeraha iyo waxa wad ku dhex arkaysaa waliba qisooyinkooda aad u fiican yihiin waana niman komikistayaal wada shactira badan marka bariyaan Tamil iyo Telugu ma lagu haystaaba marka film Bollywood soo baxo Tamil iyo Telugu yes baa la leeyahay bariyaan iyaga la qabsaday Kaban waa film ay jirayaan aktara waaweyn waxa jiray aktarka caanka Surya waa taqaan ninkan dhalinyarada weeyaan okiyaalaha wata geeska jira Surya waad wada taqaanin ma Surya hadda la idin sheegaya Tamilka Teluguga jira waa aktar halis badan filimka asaga toorka sidoo kale waxa filimka wax ka jiraya Mohanlal odayga weynka weeyaan waa aktar hore weyn weeyaan waliba marka qaar asaga filimka kaysto toortos jira hadda filimkan wuxuu ku jirayaa ra'iisul wasaaraha Hindiya uu ku jiraya filimka kano sidoo kale waxa dhinac ka jooga aktarka caanka Arya oo isaguna u muuqda inuu filimka qaybta laadirnimo ka joogo oo uu ka soo horjeedo Surya marka filimka kan waxa uu yahay film action badan oo soo baxayo Hindiya laga daawaday todobaadkan shineemooyinka Hindiyo marka Kaban waa film ay isla wadaan aktarada caanka aktarka Surya ayaana filimka iska loo wado sidoo kale Bono Mirani baa ku jira oo filimada Bollywoodka jira laakiin filimkan waxa uu ka sheekeynaya qiso ra'iisul wasaaraha wadanka Hindiya oo ku jilayo ninka lagu magacaabo Chakranda Farma ninka filimka sida loogu yeeri doono laakiin Mohanlal baa loo yaqaanay Surya baana filimka ku wacdareynaya marka film la isugu tagay weeyaan Mohanlal oo aktar weyn ah iyo waxa isugu tagay Surya oo aktar kale weyn ba waqtiga kan
marka filimka Kaban ayaa Hindiya qabsaday waana filim dhawaan soo baxay marka waxaan ku sheegayaa Kaban inuu soo baxayo ah mid kamid ah filimada Hindiya aadka loo hadalhayo okayba waxyaabaha kale Hindiga ugu weyn filimada waxaa kamid ah aktarada caanka ee Kareena Kapoor ayaa lagu hambalyeeyay dhalashadeeda Kareena Kapoor waa weynaatay maalinka filimada Hindi soo galeysay yaa filimada Hindi ku soo baxaysay gabadhii kibirka badnayd sanka taagaysay maahan hadda waxay noqotay hooyo Saif Ali Khan ba ku geeyay Saif Ali Khan qatar weeyaan wuxuu yiri war Kareenay war maxaad shiid ugu daba ordaysaa wiiri shiid maxaad ugu daba ordaysaa jacayl buu dhag ku siiya ka war wayna ka ogolaatin uu guursado markuu la keenay filimkiisii hal filim buu ku qabsaday uu ku shukaansaday wuxuu yiri maxaad shiid ka daba ordaysaa ninka maxaad ka daba ordaysaa la yiri ninku dhaqi kara ninku dhaqi kara baan ahay wiiri war Kareenay maxaad ka daba ordaysaa cunugaas dhalinta yare shiid ka buura ilin jacayl baa ka soo dhaxeeyay shiid iyo Kareena ninku dhaqi karo ayaan ahay aniga wayna waa kay jecel u qaadayo maantana cunugaabay u dhashay Temur bay u dhashay calay xal baraha bulshada waxa tobaadka loogu hambalyeeyay dhamaan aktarada Bollywoodka ay u hambalyeeyeen atrishada caanka ah ee Kareena Kapoor oo noqotay 39 jir bay noqotay ka war gabadhii Iristana soo gali jirtay maanta 39 jir bay noqotay ka war Kareena Kapoor 39 jir bay noqotay dhalashadeeda loogu hambalyeeyay ninkeeda Saif Ali Khan ba xafladda la joogay keega la jarayo walaasheed lagu magacaabo Karishma Kapoor ayaa iyana aad ugu hambalyeysay waxayna ku sheegtay inay tahay walaasha ugu fiican abid waxay tiri walaasheedii ku hambalyeynaya waxa tahay walaasha ugu fiican dunida yaani aad ugu hambalyeysay xitaa baraha bulshada waxa aad ugu hambalyeeyay aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Amir Khan ayaa kamid ahaa aktaradii u hambalyeeyay Kareena Kapoor waliba sidoo kale waxa uu hambalyeysay gabadha caanka ee Sonam Kapoor sidoo kale wiilka lagu magacaabo Arjun Kapoor reer Kapoor oo horta wax maqnaa ma laha filimada jira waa loo wada hambalyeeyay marka Kareena Kapoor waxaba hadda ay maraysa ka warwariya daadu waaska ay socoraysa ka war Kareena Kapoor tii gabadhii yareed hadda hooyo noqotay cunuga yareed Tamur baa u joogay korka ku hayso waxay noqotay 39 jir bay noqotay waa loo hambalyeynaya war hambalye baa la leeyahay Kareenay maalinta gabdhahana waxa u dabaaldegaya dhamaan aktarada Bollywoodka aktarada ayaa waxay maalinta gabdhaha dunida ugu dabaaldegayaan gabdhaha ay dhaleen ee caruurta ah hadaba aktarka caanka Mahesh Babu ayaa ku dabaaldegay gabadhiisa oo maalinta dhalashada weyneynayay yaani farxadii yaani ugu hambalyeynay dhalashadeeda inuu gabadha haysto sidoo kale Ajay Devgan ayaa isna ugu hambalyeynay gabadhiisa Niyasa sidoo kale aktarka caanka Alla Arjun ba isaguna gabadhiisa baraha bulshada soo dhigay isagoo ugu dabaaldegay maalinta gabdhaha oo maalin ay xusaan dhamaan aktarada Bollywoodka iyo dunida guud ahaan waliba aktarada Bollywoodku maalintaas waxay ku soo bandhigaan baraha bulshada caruurta ay dhaleen ee gabdhaha Ajay Devgan ayaa baraha bulshada soo galiyay sawirka gabadhiisa Niyasa sidoo kale Kajal ayaa iyana soo galisay gabadh iyadoo dhashay Niyasa oo Ajay u dhashay iyana ugu hambalyeynaysa gabadheeda maalinta maalintan qaaska ah ee gabdhaha ay u dabaaldegayaan maalintooda waxaan tiri markasta hooyo gacanteeda ku dhex jir sidoo kale aktarka caanka filimada Tamilka Telugu lagu bartay ee Mahesh Babu ayaa isna gabadhiisa ugu dabaaldegay maalinta tan ee weyn oo ma taqaana Mahesh Babu atrishadu ma taqaana inkastoo hadda iyadu ay filimada baryahan lagu dhex arkin wax ninkeeda nin caan ku soo baxay Mahesh Babu ayada laakiin anagu ma garanayno Mahesh Babu markaan iyadu garanayni gabadha waxa la yiraahdo isagu qabo Namrata Shirikor baa la yiraahdaa ma taqaana waa gabadhii ku jirtay filimkii uu waday ninkii ahaa Arshad Warsi garan waxaad u taqaanin waa fahmaya waxaad u taqaanin filimkii Hero Hindustani gabadhii filimka la qaadaysay heeska la qaadaysay aktarkii muxuu ahaa midkan hadda qosolka shactirada filmadiisu keena Arshad Warsi gabadha way ka waran Hero Hindustani gabadhii ku jirta atrisha caan bay ahayd atrishada ta qaw ma taqaana aktarka caanka hadda nawaalaya ee aadka u khatarta badan ee filmadiisu laga daba dhacay ee aadka loo xiiseeyo Mahesh Babu Allah Tamilka markaad ka hadasho filmadooda dhulka aad ka hadasho filmadooda Mahesh Babu filmadiisa dhulka ma dhacan war waa nin aad loogu jecel yahay hadii halkan Sheeruqan ay yihiin rag ugu loo aad ka looga dambeeyo halka Mahesh Babu waa laga dambeeyaa marka Mahesh Babu ayaa qaba Namrata Shirikor inkastoo Namrata markii hore aan sarayd hadda guriga joogtaayo Mahesh Babu nin caan noqday oo weyn gabadhooda bay ugu dabaaldegayeen maalinta tan ee weyn waxaana ay xaaskiisa isagu ku soo qoreen bartooda in ay ma taqaana noloshoodu ay iyadu shumac u tahay gabadhooda tan yar xitaa la Arjun bal arkay oo maalintan tan weyneynaya warka waa maalin aktarada Bollywoodka ay ku xisaabtamayeen ama ay ku dabaaldegayeen maalinta tan oo ay baraha bulshada soo gelinayeen caruurta ay dhaleen ee dumarka ah ama gabdhaha ahba marka maalinta gabdhuhu adduunka waa la wada qabsaday baraha bulshada Kajal iyo Ajay gabadhooda Niyasa Allu Arjun ilaa iyo Mahesh Babu iyo kuwa kalaba
war miyaan wax kaaga sheega ar filimka war waan ku waalay baryahan war baan idin soo gelinaya miya filimka war saasa loo sugaya adduunka dhanba war sugaya waa filim ay isla wadaan laba nin oo inaba caadi u ahayn waa Tiger Sharif iyo Hrithik Roshan filimka kanu waxa isku imaanaya laba nin oo akshimistayaal ah oo akshinada ku fiican haddana dansirka qatar badan ku ah si marka filimkan aad loogu siixeeyo hal face bay duubeen labada actor oo maadaama filimka akshinadooda lagu arki doono haddana waxay dad ku murmi doonaan war akshinadooda waan aragnay labadan isla ciyaaraya goormeen arkayna dad ku dhihi lahaayeen si ay mid loo dhihin ba filimka hal hees wada qaadayaan hooli ku saabsan oo dabaaldega hooliga hindi u dabaaldegaan ba heeska lagu qaadaya heesku wax yar baan ka fiiriye ya ninkii Tiger ah inuu taagaya Hrithik moogtay dansiga qatar ku yahay inkastoo bariyahanu Tiger uu qabsaday saaxadda Hindiya laakiin Hrithik marka laga hadlayo waa tagay man la gaaray Hrithik Roshan marka Tiger oo dadku bariyan ay jecel dheeshiisa ayaa ku soo galay heeska isagoo dansi ciyaarayo anagoo Hrithik ka yaaban Tiger dhahaya wariyay Tiger caadi maan oo dhahaya yaaban aniga Tiger buu naxnayba Tiger wuxuu arkaya markay heeska markuu Tiger ku baas dansiga ciyaaro qoobka ciyaar sameeyo on la yaabanahay Tiger wuxuu sameynayo baageeska waxa ka soo galaya Hrithik Roshan markaas dadkii meesha joogay dhan Hrithik la wada fiirinaya yaani heeska gudiisa hatta Tiger wuu yaabaya Tiger soo socdo Hrithik ag tagaya Hrithik waa ka ciyaar u arkaya Tiger intuu yaa waxa leeyahay wariya caadi iska dhig baa leeyahay wariya caadi weeyaan baa leeyahay hayla yaab buu leeyahay kadibna Tiger meeshu ka ciyaar yaani Tiger wuu la yaabaya heeska gudihiisa yaani wuxuu muujinay ixtiraam buu muujinay Hrithik Roshan wuxuu muujinaya in uu yahay aabiis dansiga yaani boqorkayga dansiga baa taa ayuu muujinaya Tiger yaani uu muujinaya Hrithik markuu kuwiisa jag noo siiyo anoo Tiger wax kale oo dhahayo baan waxa xagga ka arkaya Hrithik Roshan oo aad iyo aad u ciyaaraya hatta Hrithik kiiba yaabay Tiger inuu taagay iyo kuwii la joogay inay taageen markaas uu Hrithik dhahaya war waxba caadi iska dhigo caadi iska dhigo wariyaha hayla yaabin yaani maxnuu waad dansiga ku qaaday oo kale buu leeyahay markaas uu iska qoslaya Tiger uu la ciyaaraya Tiger wuxuu dansiga filimka heeskan ku muujinaya in uu ka dambeeyo Hrithik Roshan ileen waligiiba Tiger wuxuu taageeri jiray Hrithik Roshan wuxuu dhigi jiray waa kan ku daydo haddana filim bay isla keenayaan haddana markay arkay hees iyo isla ciyaari markuu arko Hrithik Tiger story ba ku dhageysa markuu arko ninkan lugaha sida iyo sida u ciyaaraya war runtii hees caadi aan ahayn wada raadin karaysa Tiger waa yaabiyay markuu arkay Hrithik oo lugaha ka ciyaarsiinaya ya wal laba dansiyash kimistayaal hadaba filimkan wuxuu soo baxay 2 October ha sugu waayin heeska iyo actionka filimka ku jiro actionkane action ma meesha ku dhan shughul Tom Cruise oo kale ayuu galaya ninka la yiraahdo Hrithik Roshan oo diyaarad baa lagu istaagaya wiilka uu dhalaysani doona filimkiisa lagu magacaabo balbal dilki baas nasiib darada ku dhacday maxaa yeelay filimka kan waxay ahayd in laga digtoonaado bay ahayd in lagu dhexdeeyo maalin ay soo baxayaan filimka kale waaweyn yaani filimka wiilka oo sani dol u dhalay wuxuu soo baxay jimciyi wuxuuna la soo baxay filmo waaweyn filimka Barastanam uu waday Sanjaydud ayuu la soo baxay maalinta iyo soo yaa faqtar film yiraahdo oo ay waday gabadha lagu magacaabo Sonam Kapoor yaani ma fiicna in maalinta filimkaagu soo baxay kula soo baxaan filmaan kale maxaa yeelay markaas suuq wal lagu qabsanaya hadda waa wiilkii filimka uu waday jacaylka ahaayay uu waday sanidol wiilkiisa balbal dilki baas xoogaa hoos u dhac weyn baa ku yimaada baa leeyahay maxaa yeelay filmadii kale dadka fiirsadeen meel Sanjayd uu ka socdo cunuga sanidol cusub hadda filimkiisa wax galaya ma laha meel Sonam Kapoor ay joogtana oo gabar hadda bariyan waqti hore ku soo jirta filmada ah meel ay ka socotana wiilka sanidol filimkiisa wax galaya ma laha marka qorshuhu filimkan ayaa aad u qaldanaa baa leeyahay in filimkan maadaama uu wiilku yahay filimkiisa ugu horeeyay uu keenayo ma ahan baa leeyahay maalinta in la deeymaan heen baa leeyahay hadda filimkan wuxuu tartan la galay labadan kale filim buu la galay hadda labadan filim ee kale dhaqaale badan bay soo xareeyeen halka wiilka sanidol filimkiisa uu soo xareeyay kali isku dar 2 karoor buu soo xareeyay waa lacag aad u liidata marka laba barbar dhigo filimka Sooya Faqtar ay waday Sonam Kapoor wuxuu soo xareeyay 75 lakh sidoo kale Barastanam uu jeedu waday 75 lakh buu isaguna soo xareeyay marka labadii kale ee film ayaa shineemooyinka qabsaday yaani maalinta 3 film ay soo baxaan tartan baa dhacaya kee la daawan doona kee daawashada ugu badan heli doona kee dhaqaalaha ugu badan soo xareyn doona wiilka Sanjayd marka wiilka sanidol wala way haligeen maxaa yeelay meel Sanjayd uu ka socdo maalin film Sanjayd soo baxayo iyo filmo kale oo qatar badan soo baxay baa la soo saaray hadda waxa la lacag yar buu ku furtay halka filmadii kale lacag badan ay ku furanayaan war nasiib wacan baan leenahay war wiilka wiil dalaam dar weeyaan awow u yahay iyo baby doll adeer u yahay sanidolna uu dhalay wariyaahe cimadaha lagu tuuro inkastoo filimkiisa maalin adag uu soo baxay tartan culus buu wiilka filimkiisa la kulmay si hoos buu ku furtay marka filimka hadaan dhaqaale soo xareenin filim ma ahan yaani muhiimadda Hindiya filimadu waxa laga qiimeeyaa ma ahan quruxda filimka iyo qaabka loo jiray muhiimadda dhaqaalaha filimku soo xareeyay aad loogu sii xisaabtama marka filimkan dhaqaale yar buu hadda sii maraya 2 buu maraya karoor marka kuwa kale la barbardhigo 75 bay sii dhaafayaan waxa u fiicnaan lahayd hal maalin kaliya inuu iska soo baxo filimkiisa si dadka ay u wada daawadaan Sanjayd nin arkayo cunuga sanidol ma u galay shineemadiisa وانت كنا في المانتا وركيني بولودك